inagala soo qayb galay caawa war fiican baan idin hayaa heeso aad iyo aad u qurux badan oo ay kaga qayb gashay guushaasi hees iminka daawaha laga soo qaaday cid kale maaha waa nimca yaasiin caraale ayaan doonaya in idinla maqashiiyo iyo siday guuluhu u socdaan waxaan kaloo iyada ku dheeda falanqayn doonaa arrimahan saxaafadda yare caanteynka ee jiibka ah ee somaliland dhexdeeda ka socotay la doonayo in lagu maartay majara habaabiyo guulaha waaweyn ee ay somaliland dibadda ka soo hoysay sadro wada socotaan qala dhigayna insha allah ya inoo sheergalaya barnaamijka inoo ballaariya wayna ka ya halkeedii inoo gaarsiiya caawa dood baynu ka qaadanaynaa yaa ka dambeeyey waxyaalahan dhacaya magaalada hargeysa dhexdeeda ay dadka qaar nagu leeyihiin waxbaa ka dambeeyey maartay meelo dooni la doonayo in la siyaasadeeyo laakiin la doonayo in lagu jaraababiyo mujtamaca reer somaliland oo guulo waaweyn soo hooyey atashakeena in meel kale loo jiido in la yidhaahdo iyagii baa halkaas ku laynaya saxaafaddii baa la diidan yahay no it's not like that qof waliba saxaafaddu waxay leedahay limitation waxyaala badan baan doonina caawaynu soo bandhigno idinkuna doodiino waxaad ka tihiin maaragtay doodiina idinkuna qayb qaata laakiin war ka daaya baan anigu odhan anigu fikirkaygu waxaan u haystaa in ciyaalkaa yaree kolba istuuraya gacan wareegayso lagu leeya way jaban tahay oo haddana sidaa wareegayso hanjabaysa oo haddana lagu leeya way jaban tahay oo haddana la doonayo in lagu maaragtay la siyaasadeeyo oo arrimihii c b b da ee farmaajo iyo isticmaali jireen in la soo geliyo qadiyadda somaliland aad bay u foolxun tahay ya aad bay arrintu u foolxun tahay arrinta anigu waan diidanahay ya absolutely arrinta aad baan diidanay de waad arkaysaa waxaan xisbiyadu markay doonayaan inay dadka marketing ku sameeyaan waxay iibiyaan siyaasad dhan oo waxa la yidhahda siyaasadda waa baartiga manifestadiisa la yidhaha khudbad bay ka jeediyaan waa scientific speech bay bixiyaan oo yidhahdaa waxaanu kordhinaynaa employmentka annagoo tagaska dhimayna annagoo arrimaha caynkaasu samayn doona annagoo investment ku samayn doona infrastructureka saasay u hadlaan dadka politicianski laakiin iminka carruurtii yararayd ee somaliland qalinka ayaa loo soo dhiibay ayabaa la odhanaya stuuro halkaasaa laygu dilo reer hebel baa dila iyo reer hebel baa dila sheeke yaroo caantayna oo sakaaraba ka fiirsan caawa hees aad iyo aad qurux badan ayay nala wadaagaysaa ayaa nimca yaasiin caraale ay ka soo tirisay hees maaragtay guulahan ka soo hoyday jaaliyadda xaggaasi maraykanka heestaasaan doonayaa inaan idinla wadaago xataa youtube-ka may soo gelin idinkaa ugu horreeya oo maqli doona heesta ayadaa marka barnaamijka inoo ballaariya inoo sheergareeya aynu gaarsiina halka ay leedahay absolutely aniguna waan ku daraya halka ayadaa war meel ay ka ahayn reer somaliland ya waree waxaan la yaabay oo iminka sheekadii dabacsan baaba ka socota waddankeennii sidii dabacsan umaad baandhis soo xidhanaysaa oo caan baad noqonaysaa oo yaa filimkaaga halkaas u qarxaya laba c b b na waa samaysanaysaa c b b du waxa weeye cayayaanka baraha bulshada taasi waxaa ka jirtaa fila soomaaliya sida somaliland ka jirta waxaa la yidhahdaa xaalwalwaalka baraha bulshada waa x b b xaalwalwaalka baraha bulshada xaalwalwaalka baraha bulshadu waa ka jiidaya wax waddankiisa lagu dhibaataynayo xaar buu jiidanayaa gebigiisuba oo isku haystaa inuu yahay suxufi laakiin waxaa ka fiicnaa in taxi loo iibiyo inta kamarada loo iibinayo dadka qaar waayo saxaafaddu had iyo jeer yani waa inay knowledge la timaado cilmi qofka saxafigii waxay ku odhanayaan you have to know every bit about everything waa xataa in yar waa inaad ka ogaatid waa inaad research ku samaysid waa inaad evidence haysid waa in sourceskaaga aad maarata waxyaalahaad qoraysid waa inaad backup ku samayn kartaa ya ha wallahi waa inaad backup ku samayn kartaa haddii investigation yimaado ama crime ka dhaco laakiin mid iska soo qorayo siyaad baraha loo duceeyo hargeysa dhexdiisa ya oo maynu ducayna maanta madaxweyne siyaad barre oo haddana dad badan oo reerahoodii bayloodo south africana loo kareystay oo lagu laayay ayaa magaaladii hargeysa dhex degan markaa ma garanaya carruurtoodii baa meesha joogto yaacaysa dadkii xabadda lala dhacayay bamka lagu qarxinayay ciidamada south africaankii ay bamgaraynayeen markaad tiaado ninkii waxaa ka dambeeyey aynu hargeysa dhexdeeda ugu ducayno dee qof baa iska kaa dilayaba dharbaaxa kula dhacayaba haddaan isku ka qarxinba waad ladantay baan anigu kula lahaa marka anyway bal halkaasaynu ka wadayna caawa anigu aad baan ula yaabay sheekada meesha ka dhacday idinkuna bal sheekadu waxaa la yidhi siday dadka qaar sheegayaan waa ololayn la doonayo in lagu jeediyo horumarkan dowladda somaliland ay ka soo hoysay dhinacan maraykanka
ayaa la doonaya in lagu joojiyo dadka qaarna waxay leeyihiin haddaba la fiirsada waa arrin la doonayo in islandering lagu sameeyo waa political islandering wax la yidhaa waa tii maalmo dhawatoole ninka la yidhaa xirsi xisbiga waddani guddoomiyaha ka ah uu shiriyey dhammaan dhalinyarada caynkaasa ku hawlgasha maaragtay social mediada ka hawlgasha uu ku jiro ninkan iminka gacanta san lahaa weli gacanta wareegaysa haddana jaban anigu waa fahmi waayey marka waxa laga yaabaa inuu arrintii respond ka dhigayay oo arrintii maaragtay la doonayo dadku marka $200 iyo $100 loo yaro tuuro waxaa leero caantiin oo caynkaas ayay ka hadlaan laakiin u joojin mayno guusheenna ayaa ka fiican guusha reer somaliland soo xoreeyeen ayaa ka wanaagsan reerreerna laynoo kala qaybin maayo war meena ay ka ahayn ma innaga reerreer laynoo kala qaybin karaa never hees baa idinku soo socota cajiiba oo nimco yaasiin caraale markii ay yaabtay wixii wafdigii reer somaliland ee cuslaa iyo jaaliyadda reer somaliland waxay ka samaynayeen maraykanka hees bay halkaa ka tirisay markiiba daawaas u saartay laxankii baa la saaray dhag waba la soo oleeyba hees aan anigu aad ugu qushuucay aan inoo sii wado inoo soo ururiya dadka aan inoo sii yara wada heesteeni bikan maasha allah waxbaa ka dhacay walle waxbaa ka dhacay waxaan kalena aad ula yaabay ma heesta horta idiin sii daaya intaynaan gelin arrimaha discussionka heestay soo saartay nimca yaasiin caraale fanaan aad iyo aad u culus oo reer somalilana oo runtii amazing heestay soo saartay ay ku taageeraysay wafdigan aadka culus ee tegay waddankaasi maraykanka heestaasi oo runtii isugu jirta yani trafkii halkuu marayo halkii spiritka reer somaliland uu taagan yahay inta ina yaroo gacanta inoo soo duubtay oo iska dabcasaraynaya ya war adigoo waddankaagii jooga bal kii garanay dabcasaree farmaajo u jiray ninkii garanay laakiin ina kenya le reer somaliland iyo waxa kala garan waayeba ayaa kala garan waayey waxaa siyaad bariska galay 2000 kiibu dhashay baa laga yaabaa gebigiisuba xataa he doesn't know what that government dowladdaasi waxay ku abuurtay ama shacabka ay gaarsiisay xataa ma garanayo waa ayaan daro weye dadkeenu inay cay kaa noqdaan waa arrin aan aad iyo aad qof hallo وعليكم السلام ما قلبك كان ليك kugu socda هاي قلب بندوني ريك جبتاد markii lagu tiray waaye iyo horta waxa loo danin kaaga weyn marka hadalso waxa weeye kan weyn tahay waxa wanaagsan waxa weeye wuxuu waqici jiraad ka hadasho waxa weeye oo arday sirrin waaye waxa weeye nimo wariyaalaha hargeysa lagu weeraray waad ka sheekeynayay waxa tiri siyaad barre tiirahay Allah u naxariisto iyo siyaad barre halkaan ku haynaa siyaad barre ilaahay Allah u naxariisto we don't like that simple as that okay hadalkii daadeen ku soo dhiibiyaan hadlayay waxa weeye meesha maxkamad ma haye arniyo horta siyaad barre arigu nin hargeysa baan ahay siyaad barre Allah u naxariisto la oran karaa waa qof islaam ah waxa weeye weligeed ba Soomaalidu istiri jirtay waxa weeye nin ragumba waxa weeye la dilaa midda kale waxa Soomaaliyeed waxa weeye burburtay 91kii waxa weeye cid waliba ku jirtay waxa weeye naga ku jiray qaar Soomaalida kale baa ku jiray cid waliba ku jirtay waxa weeye siyaad barre waxa jira qaar inaga waxa weeye saaqeena oo siyaad barre wuxuu sameeyay wax ka daran sameeyay horta odhanin isaageena aan mid ku sheego aan ku weydiiyo mid anu waxaan very intelligent person brother waan ku arkaya ka soo hadlaysid motivationkaaga statementkaad ku hadlaysid baan raacaya qabiilkaaga ii sheegaya soo lama socotid ha igu odhanin siyaad baraan ammaanaya oo nin ducaynaya iyo waa isaaqeena waa arrintaa waan isma galaan isaa kuma jecla siyaad bare simple as that let me I have to be straight about it maana su'aal weydiinaysaa maxaad ku taageeraysaa siyaad barre ninkii waddanka soomaaliyeed saa burburiyey miyaanu ahayn ee ummad soomaaliyed oo dhan wixii aynu soomaali u naqaaniyo liiga sidii soomaaliyed oo dhan ninka burburiyey miyaanu ahayn maxaad ku taageeraysaa siyaad barre dee haya su-aal baan ku weydiiyey iga jawaab kaaga jawaab way hadaba hadalkii dhegeyso haye
siyaad bere waxa ku taageeraya siyaad ya waa basuq baa ka soo galay alo hadalkii awal kuma la soo alo هلو جامع السلام عليكم وعليكم السلام أتبعكم سلام يا والله الكور وابو السلامي ما شاء الله سمونا كثير هذه أتبع لونا سيئة الحمد لله برنامج كمان كتير واد كوتشر سال لايف باتسي مواد غير سومالي لنا يا تكسر هذا waxaanu soo qabsaday nin kale siyaad baraha loo duceeyo markaa yar ma ku socon karaa ku soco maahe ku dabaabul adiga iskale waa barnaamijkaagii warta waxaanu sheegayaa ninkaa waxaanu sheegayaa siyaad baraha loo duceeyo siyaad bare maalin loo duceeyo midna nagamuu kalabsan waa daalin buu ahaa isaga iyo wixii la socdayba ilaahay naartaa ku fogay annagaa kule absolutely صح waxa weeyaan ninkaasi iyo wixii la socda iyo wixii imika taageerayaba adeer ilaahay uu la xisaabtami doono waana horfi doona dulmi baanay galeen imikuu la soo taagan yahay dembi maaha in la yidhahdo siyaad baraha loo duceeyo waa wixii u naageyn jiray ay dhaleen weeya waxaan hadlaya ha walle sax haye waa istagtiskii ay ka tegeen iyo bacteriada ka tegeen weeyaan kawdhe waay waa waxaan inagu dhex jirana والله بالله والله waxay nagu dhex jiraa adeer dadka noocaas ah imika la soo fadhiisanaya la siyaad baraha loo duceeyona adeer wax la qaadan karo dhigay ku qaadan karaan ma qofkaas ay soo kiciyay barnaamijkaanu inaga qatayaa dadka noocaas iyo gowdhay haye u joojin meena adeer wixii waxa ku hadana gacan biraa lagu qabanayaa ninkanna waa la soo maamaradeeyay gabay taalig lama yeelin waa mashruuc la doonayo arrinta quruxda badan leh guusha ay gaadhay Soomaaliland in lagu mashaariic habaabiyo dhinaca kale inoo jeediyaa la doonayaa sax waay oo majaraka iyo weji kale iyo loo yeelo oo arrinta Soomaaliland iska la iskaga horkeeno waxaynu aqbalayno la qaadanayna maaha ninkan aanu waa naqaana ka yare le waxba lagu dhuftay ee dhowr jeer ba la soo wararay waay isaga eedab darano dafla $25 buu ku shaqeeyay gabigiisba oh my god inaga u diri lahayn be oo siin lahayn be muu ka daayo dadka wasaan intuu kolba meel buluucu kuleeyay hudheel baan ka tegey oo hudheel kale tegey oo haddana waa laysoo daba galay tasaasba maalin horan wax noocaasa oo gebigiisoo $20 waa ku shubaa la yidhaahdaa wallaahi bilaa caadi maaha waay inamadeenna wariyaasha la yaqaana ee caanka meel walba jooga ee bal meel walba ka shaqeeya bal waxaasoo kale ku hadla waa kuwa wallahi ku hadla ila kala socday mahdi jibril ali mahdi ila kala socday ali mahdi waa wiil absolutely anigu aad uga helo saxaafadiisa iyo sidoo qadiyada wadankiisa iyo arrimaha u dooliyo absolutely لكن ninka kale waa leeyahay wuxuu haystaa malaha in waa la dilay iyo waxba la igu dhuftay lagu soo caanbaxo waay $25 baaro gabigiisu ma ku shaqeeyaa waana wax la yaqaan markaa ka noocaasa waxba loo joojin maayo qadiyadna noqon maayo waa run absolutely waa kugu raacay waana been la soo abaabulay gacantan siday u wareegaysaa iga yaabisay buu leeyahay waan ka jabanay saasay gacantu wareegaysaaba tayda ka cawaansanba wallahi weeyaan isaga iyo waxa mu'aamarad weeyaan la soo dhigay oo la doonayo in lagu caburiyo la yiraahdo Soomaaliland dimuqraadiyad kama jirto saxaafadii baa la caburinaya waa shirka noocaasa oo markaan yow arrinta markaa waa la baarayaa wixii ku dambeeyay wixii ku luglaa meesha dooda waa gashaada gacan bira lagu soo dhigaya midna wararka sidaayo wararka fiican baynu marinaa jaamaco dabaaldeg baynu ku jirnay ilaa xalayba aad iyo aad wallahi the last 7 days ساعتها نسوي رجل تشالنجر امريكا علينا لايك waa ku jira kamaan hada laakiin saad barnaamijka ugu wanaagsan ilaa maanta soo waan idin la joogayaa waan ku salaamayaa saaxib aad baa ku salaamay muwaadin gabadh aad iyo aad fanaanadu ah nimca yaasin caraale oo wada taqaana baan marinaya ayaa hees cusub oo imika daawa ka soo qaaday oo xataa YouTube ka soo gelin ay nagu soo xasuuntay inaan idin sideyno waan sideynaya marka adiga ma sha Allah hay insha Allah hay Thank you, brother. Thank you. وما صرت النباتيبه هستني وهس عادي معها وديجسن دوتان ويصل لو قلت لك يقولها اي سومال لك سو هنسو امريكا واحد كلامها امريكا
حتى فنانين تاني dadkeeni artiska ayaa kacay oo spirit ku maartay Somaliland ayaa meel walba yaala maanta idinkina waxa doonaysaan inaad inaga waashaan heestan cusub ku soo dhawaada ma sha Allah wala معايا سلام عيد كلامها Kilo, Sagaru, I stay home. أيهم فوق نحما كوينو هاي أساكن كراعي أساكن كراعي أساكن كراعي حاجة بين الكيلو سعدار ويستيرو في أيهم فوق نحما كوينو هاي أساكن كراعي أساكن كراعي أساكن كراعي ركض كتاجنا بيكورا عليو ربي الحبيب حيو ركض أين صارت هاي كسود جيرات كده ركض كتاجنا بيكورا عليو ربي الحبيب حيو ركض أين صارت هاي كسود جيرات كده Rio Ben haygun warkada ay dunya Ben haygun noqon nasiibku iraxsano Rio Ben haygun noqon Ben haygun noqon nasiibku نصيبكم الأحسنوا اختلافكم صورته الراجل صورته اختلافكم صورته الراجل صورته يقدر التلفون صوعنا وكالي وريالا تلفون يعني البلوجرين هذيك ريو يبين ولا تدخل حاجة سيدنيو نصيبكم الأحسنوا ريو يبين هيقول نقول نصيبكم الأحسنوا اختلافكم صورته الراجل صورته اختلافكم صورته الراجل صورته Gaberi hawkabiyo dukiyo muskiyo rafat aba arufu biqaye biya halo raadi jiray biya mahalo arori jiray biya mahalo arori jiray biya mahalo arori jiray Gaberi hawkabiyo dukiyo muskiyo rafat aba arufu biqaye biya halo raadi jiray biya mahalo arori jiray biya mahalo arori jiray biya mahalo arori jiray biya mahalo rafa ugarigariyo Camino el amor no la ni me rechele Raba ugari
يبين حيقول نقوم نصيبكم يلحسنوا يبين حيقول نقوم نصيبكم يلحسنوا اعترافكم صور الراجل صور اعترافكم صور الراجل صور يبين حيقول نقوم نصيبكم يلحسنوا يبين حيقول نقوم نصيبكم يلحسنوا اعترافكم صور الراجل صور الراجل صور heestaasi waa hees muwaadinada reer somaliland nimco yaasiin calaale fanaanad aad u culus artist dhammaanteenba memorigeena ku jira oona xasuusano ay hadda soo saartay heestaasi ay doonayso inay ku taageerto jamhuuriyadda barakaysan iyo guulaha ay ka soo hoysay dibadda dhammaantiinba waan salaamaya reer somaliland waxaanu ku soo noqonaynaa arrinkeenii kale saxaafadda reer somaliland waxay u baahan tahay in loo sameeyo waxaa la yidhahdo press laws inay somaliland samaysato weligay maan arkin dad saxafiyiina xataa halkan ingiriiska wadka dagaal joogjidba indiya joog america joog dad ka soo horjeeda waddankooda oo haddana saxafiyin waddankaa ka ah iminka dagaalkan ukraine ka socda iyo ka socda maarata russia dhexdeeda wuxuu exposure ka dhigay yani western conceptkii ahaan jiray waxa la yidhahdo freedom of speech dhammaan mediada ka soo baxda russia oo dhan russia today idaacadahoogii telefishinkoodii oo dhan waa laga baangareeyey waa la mamnuucay inay soo galaan adduunyada westernka haddaba la socda innagana oo somaliland masaakiina halkii ayaynu taaganahay marka dad inaga midi ay waxyaalaha qaar ay soo qorayaan la yaabsooso dadkani asalaamu calaykum adigii bulshada halo waa ku maqlaya aad baan ku salaamay adigii bulshada reer somaliland sidaad u aragtaa arrinta mujaraabaaminta ay wadeen qaar yaryar oo xarwalwaalinta baraha bulshada ee reer somaliland anigu soofiin dadka noocaas uguma yeedheen niyo mujaraabaamintu dee kolley ni horta xukuumad baynu leenahay qaran dhisan baynu nahay ma garat haye inagu wax walba ciidan baa inoo qabta dalku sirdoon buu leeyahay military buu leeyahay boolis buu leeyahay hay-ado kale amniyo fara badan buu dalku leeyahay haye marka inaga kuwaasaynu igmanay dadkan waa shacab qof kasta dastuurka somaliland baa qof kasta xuquuqdiisa ilaaliyey maaha qof intii soo fadhiistay idaacadu inuu cid iska xukumo ma garatay waay dalka somaliland hadda maraykan bay wada joogaan madaxweynahan la wada soconnaa barnaamijkeenu dayax gacmeedku hiigsanaya ma fahantay waay hookalka jamaalo waa laysu soo noqonayaa dadka somaliland waa dad wanaagsan waa dad goba waa dad horumarkooda iyo nabadooda ka shaqaynaya innagu waxaan u baahanay haddii saxaafad iyo media aynu nahay dadku waxay saxaafadda ay soo dhigaan inaan dadku sii rogrogin waayo inagu wada siyaasi ma nihin laakiin xukuumaddeena u daba fadhina arrinkaas nimankaas haddii lagu gafayna waa la xukumi haddii ay iyagu gaf sameeyena sharcigaa la keeni doona waa labada qodob ciidba lama hayba already islaanda halkii baa bilaabmay mishinarigii lagu maaragtay markiiba dad baaba la iska qabsadayba dad baa charge noqdayba oo garanayaanba qofkii criminalka ciddii waxaan samaysay la garan maayo ciyaalo badan baa jiro meesha isku jira dad baa jira isku xilaafeeya 15 bakarood baa anigaygaa nagu dhacay reer hargeysa markaanu ahayn ciyaalka reer hargeysa way sariya jireen waa la iscayuumin jiray waa lagu dilayaa laakiin iminka waxaad moodaaba inay wixiiba la siyaasadaynayaa wax allaala wixii ka dhaca waddanka gudihiisa in siyaasad laga dhigayo waar qofkii siyaasad iyo meel kale u jiiday cid dusha ka saaraya isaga u taala dalku ciidan buu leeyahay ciidanku tallaabo wax walba la socda ciidanku guri wala hargeysa ku yaala caawa waxa ka jira ciidanku yoogiye ma garatay waay sax dhalinyartu kubadda ciyaarta waa la yaqaanaa markay isdilaan waa wala xaafad baa loo garanayaa beriga hore waa la isdiri jiray dhalinyartu mar walba way isdilaan dalka ciidan baa ka jira dadkeena shacabka ee idaacadaha ayaa meel walba ka soo hadlaya wax walba iska sheegay waxaa leeyahay ciidan qaran buu leeyahay yaa wax walba laga hadlin wax walba yaa siyaasad la gelin oo cid loo jiidin shabaabta halkaasaa kaga baxay waxaa kusoo noqonaya ta horumarka dalka madaxweyneheni maanta meel fiican buu joogaa waddan fiican buu joogaa waxa weeye maanta ficoodu ka hadlay xalay waa ka hadlay bulshadiisii si u soo dhaway hoolkii baa qaali waayey intaa 2 milyan Soomaaliland banaanka taagneed oo qabowga xalay madaxweyne u taagneed aad wallahi 100% waxay ka soo traveleen thousands of miles marka inaad hawl baynu ku jirnaa dadkan waddanka ka soo hadlaya hawl baa u taala waxaanu joognaa Maraykanka dayax gacmeedkeen naga daay waxaan
iyana magaalada ka soo jeeda dalka la keenaya dastuurka la keenaya bahasha yara soo koobtay naga dhaafa dadka jamaalow kuma soo hadle ka hadlana waxaad tirahdaa war waddanka horumarkiisa ka hadal ku dhaniyo warshadii kalluunka la keenaya tii milixda la keenaya tii waxaa la keenaya xoolaha livestock la keenaya mashaariic waddanka baa laga qodaya ganacsi baa la keenaya waddanka maraykanka bangi baa laga soo qaadaya Soomaaliya la keenaya horumarka ka sheekeeyaniyo baasha reebasha inaga dhaafa baasha dib aynu celinaniyo wallahi billahi may arika aad iyo aad aniga qulada uga soo horjeeda laakiin qolooyin baa ku ugaarsadaba waxaan maartay ku adeegsadaba oo advantage ka qaata laakiin waxay naga jeedinayaan horumarkan aynu ka soo horiniyo guulaan ilaa Britain waxa lagu yidhi United Nationska ay waftigeeni la siraya oo New York bay caawa u duuleen arrintaas waxay la kulmeen ganacsatada Mareykanka caawa ganacsatada la kulmaysaa ganacsatada badan bay la kulantay waa kii madaxweynuhu sheegay war bahashan yara ka taale reebasho ciidu la daba socday inaga daaya dadku miyaana wax baray dadku miyaana adduunka la jaanqaadayay teknolojiyadan waxay noqotay reebel baa yiri kana sida yiri halkana la maray wadadkan iska dhamaanay maxay hay war waxay naga daaya dadkaniyo jamaalow dadku u sheeganiyo dadku soo waxa ka hadla wax tirada war waxa naga dhaaf ku dhaadar adduunka hiigsananaay maya waa sidaas wey haye sagaashan iyo afartii ay joogaan baad moodaa dadkeenu sagaashan iyo afartii moodaa dagaalka horumartayna ku jiraan waxa waa laga soo gudbay dadku horumarayniyo dadkani maya way laga dhabaxay wallahi caadi maaha ciidanka qarankeena hala taageero ciidanka qaranka hala shaqeeyo ciidanka qarankeena wax walba qabanaya ciidanka qarankeena dhisan maanta ciidan ma baahnin ilaahay mooy binaad ma baahnin maanta adduunka inagu noo imanaya بربري سنغافور بين نغنسا ما شاء الله waxa ku tira dadka iska wada caadifadaysan maqaaxiya ku wada qayilaya waxbaas dalku wuxuu leeyahay mucaarida dalka dawladda 2 wala isku qalay maanta wal meeshi maanta hada assalaamu alaykum هذا باتيكو شيء هاي وحسن معه هذا سوق بالنبي يا رسول الو aku soco yalla isku mashquulin ka wuxuu sheegay dadkeenu waxa u baahan yihiin war adduunku waa la talaabsaday waa laga baxay dhaa reebel ummad wax qabsatay marka adduunku ku noolaan karta absolutely waa runtaa aad baan kugu raacay markaa haye jawaal waa ku salaamaya barnaamij fiican oo wada halka ka wad laakiin dadka waxa tiraa caadifaysan ku soo wacay ciidu wuxuu ka sheegaya nin yaro qurba joog ku daalay oo waxba haynin iyo nin qol ku qayreen uu dhageysanana war dalku dawlad buu leeyahay ciidan buu leeyahay horumarkii wanaagga laga shaqeeyo ninka anta ka shaqeynaayo gurigaaga cuqdada ugu dhaw ilaahay waan ku barinay waxaan salaamaya saaxiib aad baad u mahadsantahay thank you ilaahay waa mahadsantahay thank you waa ninkaas waa muwaadin reer Soomaaliland la xumaanta inuu naga ilaaliya laakiin hadda mid baa yara jirto anigu waxaan yara aaminsanahay the more aynu farta ku fiirno xumaanta iyo waxa maartay la nugula wareegayo the more aynu abuurayno wax la yiraahdo public awareness problemka haddaad garan weydo cudurka haddii la garan waayo lama daweyn karayo meelo badan bay wax inaga dhex jiraan structureka reer Somaliland iyo siday u dhisan tahay waa guul weeye guushaas ayaa la doonayaa in gudaha laga burburiyo Somaliland dibadda lagama soo duuli karo la socda Somaliland waxa laga soo duuli karaa caqliga qofka illiterate-ka ee Somalilanderka in la dhex dego maskaxdiisa oo lagu abuuro wax la yiraahdo annaga iyo suxufigii inuu reer noqdo wadaadkii sheekhi inuu reer noqdo wasiirkii inuu reer noqdo muxuu ahaa maayarkii inuu reer noqdo arrinta caynkaasi waxay burburinaysaa structureka iyo mechanismka Somaliland ay ku shaqayso taasina waa taynu ka soo horjeedno haddii aynu nahay dad civilized jira dad ka horeeya Soomaalida kale dad advance dad aan dadkii yidhi we are people who don't need people waxaan nahay dad aan dad kale u baahnayn ee iyagu isdhisi karaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه والله. وفي عنا الحمد لله. ما شاء الله. جمال سما. والله صوتها وسامع وي. سامع ايوه والله. وفي عنا والله صوت برنامجك والله الحقيقة صار زي ما حاجة. والله أنا علي محمد سعيد بطنبل يا مقرب واي وأنت شو عاصمة سوماليلاند هرقيس عدي هرقيس عدي بدك سؤال ما شاء الله ورك نصيب موادن سيدي فكر كان هي سوماليلاند قولها سوهينيا أنا ما صعدا وأنا أرتا عادي عادن
ugu faraxsannahay waxyaalaha somaliland qabsatay ay qabsan doonto ay ku dadaalayso horumarkay samaynayso waftiga madaxweynaha somaliland hogaaminaya jooga washington siduu la shirayo jaaliyadii reer somaliland ee joogtay maraykanka khudbadaha iyo siday u warbixinayaan ay hawsha u wadaan waan soo dhaweynaynaa waana ula dhacsannahay shacabka reer somaliland oo dhan maasha allah haye ku soco muwaadin وعليكم السلام وعليكم السلام سولو جامع عبدي عاد بكون سلام يا سولو بارلي بدك صار ما شاء الله هيا كل صعب واي هاي مواطنين حلاشة صح نرجع كودر سنة يا عادنا نروح لنا يا دار شعب كريم somaliland دبدي كذا واي إنما يرير بقول دولار وشغال يا عروش بقول دولار قاطع بقول قاطع CBB وبقول قاطع دولار إلى يرو خير كيا وعدو ويسا وقادين كيا واي ها وبقول somaliland قاعد يروح نروح على قادريا صح waxaa ka dambeeya niman waaweyn oo siyaasiyiin sheeganayo saaqadiba ka dambeeya waxan oo reer somaliland waay waay waxa loo dambeeyahay in la yiraahdo xaafadda somaliland baa la carqaladeynaya waay adduunka waxa loo sheegaya wax kale oo waxa aynu gaadhnay ama ku niyaayirayno ama inoo muuqdo ayaa la doonaya waxan in lagu ciideeyo waay sax خير الله كسية عدنا يتكرر برهم بشرة كذا قال ميسا يكون في شغله ما شاء الله يرسل مال لنا وحملنا عدو بدن صح حتى بدن وحمل قرطاه وعوشه الجنود وقول دولار أما كل دولار يقابل وارن والله يبي له وارن هذا فلان واي ضد كنوع عاصمة هو مويليهم وحيليهم قار ولا ما شئت وعلماء الدولة أكثر ما لكن قار ولا ما قصوا قبله واي وحشيتان قار وقضي نقاميدا واي marka qof faniin inay oo kala taabtaada laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahana siiyey bulsho reer somaliland oo qalbigooda nadiifiyo xalaala alla dadkii reer somaliland xalaalsanaa sax ما شاء الله وعالمka daafihiisa ku kala nool oo qadiyadooda u soo jeeda hareenba garanayana fal kasta oo adowgu maanta u soo maleego fahmaya imka waxaan arkaynaa CBBD Soomaaliya meelaha la wareegaalaysanayoo leen haddii Somaliland Maraykanku ay ka casaar yeeshaan imantiiba xuduudiintiiba halkaa berberi kaga dhow kale Ethiopia ku dhow waxaasoo dhan waanu la soconaa muwaadiniinta xalaasha weli sodobadi ka arkayay jaaliyadda reer Maraykan ilaa carruurta ilaa 12 jirka ilaa iyo 8 jirku waa isku af وارن ولا جاليدا مريكا كعاد بالو أماني جاليدا غير سومالي مريكا دقن مركا عمد بان تكو عطريا أيه تقلب في عماتي ما شاء الله خير الله كسيو على وانا كوريستا وانا كلا صعدا بلاد كادنا وان شهر قريا عاد بالو صح مركا وحن دوري يا دادك كليان كم كل شراء أو كل رسوب أما في دول وحري دورا هدال لدنو تقيسن دورا غير سومالي سالتوك هذا صوب عايز أعمل لوغي هاي صعب عدوين معلم وربا طب يحارب وعليكسريا وارن لكن على كنا وحق قرن توحيد باق قرن إنه كروسي كعمو يعني مرة بخوص العمايو هجي الغباء شغل بفريا وروح على يوغة كان ياهي قد عن وحبا إنه حق درسل والصوماليين دمو يعني وحكا لنا قد ورقينا فارح معالين يعدوها منك لنا هذا جامعة نيروبي لغا looga taaglayay ninkii lahaa inaad raadisana waan doonayaa bulshada reer somaliland soo bandhigto ninka cabdiwahaab la yidhaahdo sheegta profesorka jaamacadda nairobi dhiga keligii dhaweed nairobi lagu afduuli jiray aad baan u gartay waan gartay iyo kan kale baarlamaanka ku jira ee inantiisuna filan soomaaliya u shaqaysaa kan ogaadeenka
فارق معلن ها صح فرح معلن سووا hogaamiyaasha geeska afrika la mariya carruurtiisu ismaaciil cumar gelin oo dhalay buu geeyey kiloo jira la naxariisteen xadaa jiraan ciyaalina dhalay buu keenay marka farmaajada imikeena baa ugu shaqaysa sida soomaaliya oo geystay laakiin xadnadu waxay tahay waraysiga fideedu ku jira youtube-kana waa laga helayaa ninka lahaa cabdiwahaab wuxuu yidhi public buu wuxuu yidhi si public ah ayuu wuxuu dadka reer somaliland waa in lagala dagaalamaa dhaqaalaha waa in lagala dagaalamaa maalgelinta waa in lagala dagaalamaa wax kasta oo horumar waay bal ka waran sax marka waxa weeyaan haddana dadka noocaasi intahay adag barsanayaanoo soomaalinimay doondoonayaan iyo wax midnimo la yidhaahdo oo aan dhacaynin midnimada mana dhici mayso addiyadeena iyo madax banaanideennana rag baa heerkaa soo gaarsiiyo dhiigooda u shubay annaguna maanta diyaar baanunay wallahi hadday difaaca noqoto waanu ka tegaynaa yurub iyo ameerika iyo aasiya waa ka tegaynaa qadiyadayada iyo dalkayaga iyo diintayadaanu difaacanaynaa soomaali kasta oo isku daya xumaantaydana waxaan ku uri halkiisaanu geynayna maasha allah uga guulaysano waanu naqaana marka waxa weeyaan adigana khayraadaha ku siiyey aad baad umahadsantay jacalka dayda somaliland laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaa jira dad badan oo aan somaliland ku koray oo afkeenna iyo farteenna iyo reerkeenna iyo cid walba garanaya intaaynu ku hadlayno iska dhigay reer somaliland laakiin aan somaliland hayn oo kugu socda inta badan waxaan baaraa motifkooda ujeedadooda ay u hadlayaan ayaan anigu markiiba waan soo saaraa ya mid kalena waan halkan waan ka jeedinayaa inta halkan ku jirta ee ku dhagaysanaysa ee muwaadiniinta waxaan falayaa waxaa jira dad badan oo aynu dhallay oo aynu waalid u nahay assalaamu calaykum habeen wanaagsan waa habeen wanaagsan yara sugin yar aye wayaar way waxaa jira dad fara badan oo aynu dhallay oo aynaan inagu aynu ixtiraamayno rixannimada iyo dhaliinka aynu dhallay laakiin ka soo horjeeda qadiyadeenna iyo goonistaageenna ka soo horjeeda dalkeenna wax ku bartay dalkeenna jooga ku soo koray aanu abtirnahay dadkaasaa xitaa maanta jira dadka ugu badan ka dagaalamaya gudaha bulshada inaga soo horjeeda si fiican baanu gartay marka waxa weeyaan kuwaan waxaan leenahay abtiyaalow rixin baad tihiin hablayaga idin dhalay waalid baanu idinnay nagu ixtiraama qadiyadayada somalilandnimada nagu ixtiraama reer somaliland baanu nahay calankayaga annagaa difaacanayno horaba difaacanay maantana difaacanayna abtinimada iyo dhabeeyada waanu idinku ixtiraaminaa nagu ixtiraama maasha allah aad baad umahadsantay sax tankii waa ku maqlayaan marka waxaan intaan kusi darayaa inamada reer weriyaasha inankaa yar imika weriyaha sheeganaya ee gacanta ruxaya waxaan hayaa labaatan qoraal oo uu leeyahay oo uu soo dhigay intii madaxweynaha somaliland uu ku maqnaa maraykanka ku maqnaa malaa 20 qoraal ka badan uu soo dhigay 20 qoraal wuxuu ku amaanayaa soomaaliya iyo farmaajo iyo fila soomaaliya ay ku amaanayaan waa waxayna haysta runtii ayaan daro barwaa somaliland dhowraysayaasha kii baa laga yaabaa inuu dhashay dowladda siyaad barre iyo waxay qabatay iyo wuxuu ahaa midnaba ma yaqaano historyba kama haysto ma yaqaano haddana maanta wuxuu ammaanayaa oo uu leeyahay siyaad barre 27 sano uu kasii maqnaa kida oo maanta waa maalintuu dhintay siyaad barre haddii maanta soomaaliya wax laga weydiin lahaa allah u naxariisteen wallaahi been idiin sheegi maaye markaas ku degaan baanu ka soo jeednaayo haddaan joogi lahaa waddanka amaan laba indood ka qabi lahaa dekad diyaar madax u gelin lahaa waan ku fahmayaa kan ka hadlaysad wallahi muwaadin aniguba walaalkay hadduu waxaa samayn lahaa inaanan meel ku wada noolaanin yani historygan soo marnay qolyaha mucaaradkaa waxaan leenahay waxaa laydinka baahaya barnaamijyo ayaa laydinka baahaya hofana laydinkama baahna maalin walba in yaro gacan buuban iyo meel baa laygu dilay iyo waxaa la yaabay yararkaasi markay la nalaayey sida ay u hadlayaan gaarigaan meel dhigay gaari kale ay daba taagnaa gaari kale ay horreeyey dib baan u baxay baraa bulshadu maaha maxkamad warun absolutely
absolutely صح daldaloolo badan baa sheekada hadda ku jira sida wax u yara organize garanayaan iyo yani waad la yaabaysaa meelo badan baa jiro oo ay ka dacweyn lahaayeen ilaa waxaa la gaaray booliiska taliyaha booliiska dabagale ayay qaranka ka caayeen social media والله قصر وي عادي ما عادي عاد ما مودي كلا كجرا اسغنا خدك تليفونك كجرا عاد بعد ما صرت عادي عاد ما صرت وعليكم السلام والله مواد الحلاله كسو مواد adiga كجرا ها waa ku jiraa marta waan ku salaamaya marka hore magacayguna waxa la maxamed cabdi waxa kala soo hadlaya Helsinki Finland dabaashaadka farxadda ma ka qayb qaadanaya ma sha Allah ka qayb qaadana waa aad waan jeclay soo dhawow kowde marka ana waxaan yaari xalina waan ku daawanayo de waqtiga aad iga qaban weydii anyway shaqadan hadda ka soo baxay 9 o'clock soo waa adoo ku jira markaan arkay baan hadda ka miday soo nasi wanaag waad iga qabatay waxaan doonayaa inaan kaliya iraaho waa ma sha Allah waa wiigagii noogu faraxsanay waa wiigagii aynu habiga ahayn waa wiigagii reer Somaliland darisku ninka soo Somaliland darisku ku abtirsadaaba inuu yahay proud he feel proud waa this time wala warantaada kowre صح كوري marka waxa kaliya doonaya hada sheekada waa leer socod ka hadlayeen waxaan doonaa horta marka hore madaxweynaha waa salaamaya iyo waqtigiisa sharafta leh sida wanaagsan ee meeqaam kale lagu soo dhaweeyay waxaan yiri horta galad iyo nasiibkuna waa taqaanaa heesaasi waa galad iyo nasiibkuna ugu ogaa leeyahay gaadmo iyo orod mid lagu ma gaaro Soomaaliya wala waxaan yiri madaxweyne guusha la kaalay go'aayo shaalkuna waa waxaad gaar u leedahay inay ku saarnaadaan garabka waa calaamada geesiyo lagu garto inay gama diidaan saarnaado garabka hangoolku ila guusha soo dhalanay taasi waa kow kowde marka waxa doonayay xagga Soomaaliya iyo Somaliland laga wada hadlayo nacabkan iyo waxaan dadkeena dhexdeena insaarka lagu jiray meelaha waxaan qaltaagay waxaan la yaabanahay marka Soomaalida kalaba laga la daayo waxa weeyii Somaliland iyo Soomaaliya 60 kiiba isku darsadeen okay we are two states we used to be two states صح laakiin anaga kama cross qof Soomaaliya ka soo jeeda oo oranayo waa horta waan isku darsanay laakiin maxaad nogaga tagaysaa waa dadka la yaabanahay dadka la yaabanahay aqligooda waayo binaadamku waa isku darsadaan waana kala tagaan laakiin dadku oranayo mabeeda jirinba how can you understand amrikaas waliga dhaadhicinaay والله بالله واحد صح واي كور هنا هذا وارين رياب له والله listen بدعت بالك هاي واحد كور دقيقه كوري واحد aragtay inagu Soomaaliland baan nahay waynu tagnay okay inaga dadkeena Soomaaliland suugaanteena ku jirtay gabayadana ku jirtay heesaheena ku jirtay qiimaha magaca Soomaali marka laga hadlayo Soomaali ma ka hadlay laakiin shanta Soomaali aan ka hadlaynay dadkii ugu hanqal taagay weynaa inaga haayeen inaga niri haynu isku keeno inaga shanta raadinay inaga intaan u tagnay ujeedadeenu ahayd ardayda saddex kale nala raadiya wadinan mini dadina xabar jilbaha aasano absolutely waxaanu raadinayna wax la yiraahdo Greater Somalia oo shantii Soomaalida la isku keeno ayuu raadinayna wuxuu yiri muxuu ahaa الله نحرسها وكاني نتغادر بحوري دوب نفقر بالبرادي واحد كبر بدوبي عشان لقعه واحد كنت في الدين ليديسه يعني حقك دوبي عشان لقعه وشاف الصوماليين كبر بدا كلي والله واصح يعني واحد عبارة قيمها الصوماليين ما ضايل هاي بس الصوماليين كبر لنا وإنك ورثوا ووحي إنك قاعد بأنه على كبوت صورنا إنه exactly لو جدنا ما هنا ده حمر وده بالروسي كعادة وجدنا كلاهين absolutely
exactly tira cadmiyuha allah u naxariiso ka Soomaali jeclaa عندنا adlaas uga socday asiriyo heegna kaantii kan tarninkii waa wali reexamaro kelmadda noocaas la yimid dad Soomaaliyeed qiimeedu leedahay ka sheekeynay nafa kama cross والله وانتهى هالشيء ما ديق مركز هذا هالشيء ما ديق كثير واي وذكر سومالان درس حرية قيمة اللي كالي وارن آديات نري حمرو حلي قال ولا ونري نلا دقمو سيو هاللي ولقى مركزي ولا إلى هذا بس سومالي بدنا إنه سيد لحد كيا إلا أبياشين لا نقصوا أبديين وحوي دستعاش كي بكين وحنا كويني هذا دستعاش كي دي ولا صول لابني يمدير كي مكان بيجي يمدير كي مكان بيجي ما يولي let me tell you one thing just the difference كلمتنا إنه كلا دحية وحوي Somaliland iyo Soomaaliya waxa way inagu teedii aynu ka maqneen hadda nolosha hadda inoo bilaabtay you feel yani so 30 years ayaynu we are going up from progress to progress we're moving and sida u soconaaynu kolba step baynu sii kordhaynaa 30 years exactly every single day horeynu talaabsanayna every single day horeynu talaabsanayna what that is 30 years iyaguna 30 years they are going down they keep on going down well absolutely that's the difference between Somaliland and South Africa I mean mentality and physically everything that can work of course mentality واحد بينادك اسكو دافيد well absolutely unique by the society add بينو قدوين add بينو قدوين that's the proof إنك تبكين Somaliland درسكين يكمل كسر جبد تشوجا يعني واحد اللي ما تقانا نيكو markuu xalay waxa daawanay nina si wanaagsan oo sheekaysanayeen wuxuu ku yiri aniguna waa la qaba marka waliga waa ku yiraahdo waxa weeye iyagu waxay ka imka waxa taagantahay dacwadii cadki geelku markuu saaraa caalif waagu waa uf ka keenay halkii bataagihi wallahi waa taadiye billah صح listen brother listen waxa weeye inagu kumaba mashquulno taan uma hayno inagu ku cayno iyo adiimka leena jannadii firdawsa koonfur ka soo dilaacday inaad tiraahdo Allah uu siyaadiyo mooye yaa u keenay oran mayno inagu isla ku mutaystay inaga ma aragtay ma la yiri Somaliland ba halkan hantiyar uga timiday how come on bay kooranaysa ku dhigay ka badan ba haarinta aad iyo jira aad baad maasantay muwaadin kala ku jira muwaadin isaguna ku salaamay adeertees farxadda iyo dhamaashada kala qaybsan Somaliland ibri Somaliland darisoode qiimaha Soomaaliyadu leedahayna waa salaamaya aad baad maasantay wanaagsan I love you take care brother take care brother wallah alaykum assalam adiga hadlaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت بنكون سلام يا بعد سلامة الشهود مريكا كسر السلام علينا يا أمريكا جوا مريكا من جوا صح إن وحن ليه هنا يروت الضغط كصومال اللي أنت الشيعان يا هلا قصة ضغط كهلود أيو كان حندت كل الهرجيش برعد كهلود أيو قصية هلا قصة هلود أيو حرني ماذا يكون أنا كهلود أيو حرني ماذا دون أنا مش هطلع كبيرنا حاجات كبيرة سامر كهذا أنا وحن كسر جدا ضغط كوحنا كوارت كسر وجه على اللي يعدي ضغط كابان هاي أيان هاي نادر marka dadka laakiin Soomaaliland waa nimo tolkaya waa nimo walaalahaya waa nimo laaye waa oo qonsanay meesha doona ku biiraan xor bay u yihiin meesha doona raacaan way laakiin waxa weeyaan naadir hore uu yiri bantimacad wuxuu la taqaan nin ku dhisinaan mayno adiguna burusarintiisa way laakiin anigu waxaan Amerika jooga maalintii la xataa waan diidanaa musabbix lagu banaa maxaa diidanaa waxaan lahaa musabbixi waa madaxweyne laakiin raad dad baa doortay madaxweynaha musabbix way inaan soo fikir dalina aniga la yaqaan fikirkayga fikirka wuu yeelan kara qofku fikir laakiin fikirku ma gala had iyo jeer waxyaalaha la yidhaha wadaninta ama wadanka iminka ninka maraykan jooga fikirkiisa ma odhan karayo anigu ma aaminsani waxa la yidhaha United States of America waxaan aaminsani waxa la yidhaha Canada eegada haddii aanu aaminsanin waa inuu meesha uu aaminsan yahay waa inuu tago wadanku waa nationalism waa geography waa wada dhalasho adigu nin awdal ka soo jeedaan ma inaad tahay adiga iyo ninka ka soo jeeda ninka Hargeysa ka soo jeeda ninka Gabiil ka soo jeeda ka Berbera ka soo jeeda ka Laascaanood ka soo jeeda dad wada dhashay baa tiin geography iyo dan iyo waxba idin mideeya taariikh baa idin mideysa meel aad kala tagaysaa lama jirto ya laakiin waa sax warunta been ma taariikh wala mideysa waa nimo walaalahaya waa nimo dad igu dhow tirsanay taasi wanaagga iyo walaalnimada tirsan oo boqolkiiba boqol tirsanay oo dad waa laakiin waxa weeyaan ma taqaan anuu ninka soo
sanaag degan fikirkiisa waan ku taageersanahay meeshu doon hadduu ku biiro hadduu cadaalad waayo hadduu wuxuu meeshu wax ka helayo hadduu ku biiro waan aaminsanahay ninka hargeysiya burco degan waan aaminsanahay fikirkiisa u daynaya waxa dhibaato ma waxba ku weydiin ma akhrisatay buug la odhan jiray animal zoo ama beerta xayawaanka haddii qof kasta loo ogolaado fikirkiisa inuu ku dhaqmo deedna waxaynu noqonaynaa waxaa la yidhahdo animal zoo oo kale ama xadiiqadii xayawaanka oo madaxaynu isla wada dhacaynaa marka si wax loo kala ilaaliyo ya marka inaad waxaa doonaysaa imika maalintii dawladda dadka la dhex maray dadka sool degan iyo dadka awdal boorama jooga maalintii makarfoonka la dhex qaaday socdaalka musabixii la weydiiyey waxay ku tilmaameen dadkan inay qabiil musabix yihiin fikirka inay la aaminsaneen musabixii inuu qabiil u safray ay ku tilmaameen may ahayn may ahayn dad badan oo reer awdala oo reer somaliland ayaa ku jiray dad badan oo sool iyo sanaa ka yimid oo reer somaliland ayaa ku jiray professor samater baaba shalay ka mid ahaa dadkii aan khudbadooda dhegaysanayay niman badan oo education oo highly education oo qualified ah oo fahamsan qadiyadda somaliland ayaaba ka mid ahaa dadkaan qadiyadooda dhegaysanaynay marka waxaa jira dad maskaxdooda laga yala dhaadhiciyo waxyaalo kale oo maaragtay iyaga aan xataa intereskooda ahayn mar baa qofka bini aadamka xataa isaga naftiisa laga badbaadiyaa soo ma ogid ya marka adiga in naftaada in lagaa badbaadiyo xataa adiga futurekaaga ayaa yana qurux badan aad baan umadsanta muwaadin wareedha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan doonayaa halka waxaan usoo galay caawa inaan heestii ay inoo soo qaaday nimco yaasiin caraale inaan idinku celiyo mar kale oo aad u cusub heestaasoo weli soo gelin youtube-ka lagu soo dhaweynayo yaa soo galay heesteena dhegeysta waa hees fresha heestan baa ku socday وهسه هو فريش وهسه بوش الدبل rakada ay saaran tahay kasoo degi heestaasi waa hees ay soo saartay fanaanada aadka u culus waa nimco yaasiin caraale oo dhammaanba aad iyo aad uga qayb qaadanaysay guulaha iyo contributionka ay sameeyeen waqtigan culus ee uu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somaliland iyo jaaliyadda somaliland ee waddankaasi maraykanka oo si aad iyo aad cajiib u ah u soo dhoweysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو الو مقال ما جرى حاجات كسر نسي ولا مقعاقة محمد ولا تركيا جوجا هاي ولا ساعة برنامجك يو هذا نقص بيري إلى غير دول يسد وانشالا إلى هذا إلى غير دول يسد وانشالا هذا نقص بيري marka yara dhegeyso brother ma time fara badan ma hayo aniga qulida sii socda heesta sii dhegeysa heestin ما شاء الله نمع ياسين عرالة ريو بين هايقول نقول ريو بين هايقول نقول نصيبكم يحسنوا اختلافكم صورته الراقد صورته اختلافكم صورته
haygu noqon nasiibikow iraxsanow riyoy been haygu noqon nasiibikow iraxsanow ixtiraafkow soorle haraagibe soorle ixtiraafkow soorle ما شاء الله اللي معايا يا سيدي ماشي اسمع عمك قصة صورتي يا ربيك بريحة وكبيو روكي يوم رفات أبا أعرف قيقي في حلو رادي جري هي معلو عروري جري هي معلو عروري جري هي معلو الصغيرين لما تصير هي معلو عروري جري ربيك بريحة وكبيو روكي يوم رفات أبا أعرف قيقي في حلو رادي جري هي معلو عروري جري هي معلو عروري جري هي معلو عروري جري أول ما تذكرني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرينا يا برنامج عاوي تاسع ينكو سوق بقبين دولا إن شاء الله ويا بريتولو معلش قوة من دي تذكرين الشمال لما كسيت شوغابا وحدي رجينا يا إن أتكو وارتان بش إيا برواقو نبت جيليو عاطمات إن الودة كينا كفانتان ناشناليزم كينا إنو هذا مد بكوليرا كدو وندتك كالي وإن كفانتان وحي أتشيف قريسين وحاد صوص سارتين maanta qofka reer Soomaaliland waa inuu farxad ku seexdo meel kasta uu ku nool yahay dadka la inoo adeegsanayo xarwalwaalka baraha bulshada anigu bixiyay ee kamaradaha loo soo dhiibtay iyo xalaaykaasay 20 dollar lagu wadana minnihin qaal u joojinaya halgankanna uu soconaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaantiin baan salaamay maca salaama wayno iyo insha Allah wiigan dambe dhaxdiisa wa salaamati